عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح وناكسن داوديال waxaad ku soo dhawaataan warka subaxnimada Hiilamidi qodobada aad ku daawan doontaan waxa ugu waaweyn senator Faloole oo khilaaf uga digay xukuumadda iyo baarlamaanka Puntland dawladda oo digniin u dirtay dadka magaalada Muqdisho ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo xafiiskiisa ku qaabilay kaaliyaha xogayaha guud ee qaramada midoobay ee arrimaha Afrika akhbaraadka dibadda idinayna waxa ugu waaweyn meydka askar Kenyan qarax lagu dilay oo la geeyay Wajeer Iran oo mar kale iska fogeysay ku lug lahaanshiyaha qalalaasaha ka taagan bariga dhexe qodobadaas iyo kuwa kale ayaa ku daawan doontaan saaxiibaya marka la isku soo noqod haboon waxaad ku soo dhawaataan warkaasi oo faahfaahsan aan ku bilownay Cabdiraxmaan Maxamed Faloole oo kamid ah xubnaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka dalbaday xildhibaanada golaha wakiilada Puntland iyo xukuumadda Puntland in dhexdooda uusan kala dhaxgelin khilaaf waxa uu sheegay senatarka in xildhibaanada dhalinyarada ee ku jira baarlamaanka Puntland ay muhiim u tahay in ay bartaan dastuurka Puntland iyo kan Soomaaliya si looga fogaado markaasi khilaaf isla markaana dadka ay u hoggaansamaan wadada saxda ah dhinaca kale senator Cabdiraxmaan Maxamed Faloole oo u jawaabay odayaal dhawaan ku shiray gaalkacyo kuwaas oo sheegay inay qaateen ku dhaqanka shariicada islaamka waxaana uu ka codsaday in aysan markaasi u yeerin dadka dhibaatada ka abuura deegaanada maamulka Puntland halka hadalkan ayaa Cabdiraxmaan Maxamed madaxweynihii hore ee Puntland ahna xildhibaan ka tirsan aqalka sare ayaa waxa uu ka jeediyay furitaankii shalay ee kulankii 44aad ee golaha wakiilada Puntland taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya Bashiir Cabdi Maxamed Ameeriko ayaa shacabka ku nool magaalada Muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliya uga digay inay guryahooda ka kareeyaan xubno ka tirsan al-shabaab kuwaas oo qarax iyo weerarba ka fuliyay magaalada Muqdisho waxa uu ugu baaqay dadka Soomaaliyeed inay si weyn ula shaqeeyaan ciidamada ammaanka isla markaana ay qaataan digniinta ah in aysan ogolaan in guryaha ay ka kareeyaan al-shabaab isagoo si hadalaya ayuu sheegay in dawladda Soomaaliya ay dejisay qorshe cad isla markaana ay dagaal kula jirto al-shabaab shacabkana looga baahan yahay inay soo wargeliyaan ciidamada ammaanka tira markaasi dhowr jeer ayaa dawladda Soomaaliya waxay digniin ka soo saartay dadka guryaha ka kareeya xubnaha ka tirsan al-shabaab hase yeeshee aan weli maxkamadda la soo taagin dadku eedeysan inay guriga ka kareeyaan xubno ka tirsan al-shabaab ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa xafiiskiisa ku qaabilay kaaliyaha xogayaha guud ee qaramada midoobay oo qaabilsan arrimaha Afrika Benito Katiya ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo kaaliyaha xogayaha guud ee qaramada midoobay ee arrimaha Afrika ayaa ka wada hadlay arrimaha nabadgelyada howlaha nabad ilaalinta iyo qorshaha dawladdu isugu diyaarinayso la wareegidda mas'uuliyadda amniga Benito Katiya oo ka tirsan waaxda siyaasadda iyo dhismaha nabadgelyada ayaa xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ka caawiyay howlgallada nabad ilaalinta imikana akhbaraadka dibadda duurnimadii shalay oo sabti ahayd ayaa askar ka tirsan ciidamada Kenya waxaa qarax lagula eegtay inta u dhaxaysa deegaanka Qorof Xaraare iyo Konton oo aad ugu dhow xadka ay Kenya la wadaagto Soomaaliya in ka badan 10 askari oo Kenyaati ayaa qaraxaasi ku geeriyooday kuwaasi oo saarnaa gaadiidka qaraxa lala eegtay waxaana qaar ka mid ah askarta qaraxaasi ku geeriyooday oo gaaraya ilaa 3 la geeyay magaalada Wajeer ee gobolka waqooyi bari dalka Kenya oo deegaan ahaan ay ka soo jeedaan ehelada askarta geeriyootay iyo saraakiisha iyo maamulka magaalada Wajeer ayaa ku sugan goobta la geeyay meydkan waxaana ay sheegeen in ay aad uga xun yihiin askartani qaraxa ay ku dileen ururka al-shabaab ma ahan markii ugu horeysay oo ciidamo ka tirsan booliiska iyo militariga Kenya lagu weeraro deegaanada dhaca xadka Kenya ay la wadaagto Soomaaliya waxaana qaraxii
shalay sheegtay al-shabaab iyagoo sheegay inay dileen 11 askari oo ka tirsan ciidanka Kenya hase yeeshee saraakiisha ciidamada Kenya ay qireen 10 askari. ugu dambeyntiina madaxweynaha Iran Xasan Rouhani ayaa sheegay in Mareykanka uu halis dhab ah ku yahay xasiloonida gobolka iyo tan caalamka xilli ay xiisadi ka taagan tahay khaliijka. dowladda Mareykanka waxay labadii sano ee tagay ku xadgudbaysay nidaamyada iyo xeerarka caalamiga ah waxayna iyadoo adeegsanaysa kheyraadka dhaqaale maaliyadda iyo militariga qaaday wado markaasi gardarro ah waxayna halis ku tahay nabadgelyada gobolka iyo tan caalamka ayuu yiri Rouhani ayaa ka hadlayay kulan ay magaalada Bisheekh ee dalka Kazakhstan ku leeyihiin madaxda ururka iskaashi Shanghai oo ah isbahaysiga amni oo ay ku midaysan yihiin dalalka Yurub iyo Aasiya qaarkood sida Ruushka, China iyo India. Rouhani ayaa Mareykanka ku dhaliilay ka bixitaanka heshiiska nukliyeerka Iran ee la gaaray sanadii 2015 isagoo sheegay inay Washington ay dalalka kale ku cadaadinayso inay jabiyaan qaraarka golaha ammaanka ee soo celinta xiriirka ganacsiga lala leeyahay Tehran. madaxweyne Rouhani kama hadlin xaaladda khaliijka iyadoo Mareykanka uu Iran ku eedeeyay in ay markaasi ka dambeysay weerarkii lagu qaaday laba markab oo saliida qaada. intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa daawadayaal warkii subaxnimo aad kala socoteen Hilla Media. intaan warka ku xigay kulmayno waxaan idin leenahay ha ilaawinina subscribe-ka si aad ula socotaan wararkeena dambe. nabadgelyo.